anigoo dumar dhibkii iyo dhibaatada la ii geystay waan dabool waan qariyay cunugayga asaga gacantiisa ku dhintay because ani waa qarinaaye asaga maanta in aan sheeg igu kalife because brankigayga waa iska sii waday sifaan asaga ugu dheel maadaama arkay inuu calaayo waxaas dhahay ku dheel kan wax lagu dheel wuu istaahilay teeda kale inuu doqon yahay inuu aqli qaban kala garan waayo cunugu ani jaranjar iga tuuray aan dhiig baxay Hargeysa aan 20 days ku dhiig baxay uu maqlaay uuna isoo raadin Hargeysa dhaxdeeda oo aan soo tago Nairobi maad gabadhi ma dhimatay ma nooshahay cunugu ma ku jira oo na dhihin ayu intuu soo wixii ugu dhahooyaa maxay igu sheegays ina ay dhashay ma fahanteen qof walbana uu dareemi karaa ani meesha ka kululahay mise aan wax ka dareemayo nin shalay inta guursta asagoo shilni haysanin aad wadankaaga dadkaaga gurigaaga inta uga tagtay wax walba noloshaada aabayleysay aan raacdo la guurtay abaalkaaga ka dhigo inuu dabada haraanti ka galiyo cuniga ka soo rido telefoonka ka qaata ka jijibiyo shilinka gacanta ku haysan uu ka farmaroojiyo kaas nin ma la dhigi karaa waxa intaas dhan aan u qarinaayeen waxay tahay inaan ahay naag iska adag oo tarbiya lagu soo koriyo oo wax walbana qarin karo aniga soo gudbo wuxuu yiri door jeer aniga qalad la iga galay sub qadaaranayaa horta codku waxaan kuugu soo diray waxay ahayd inaan ku tuso inaad doqon aan tahay ma fahanteen ana hooyaday second daqiiqad every day as ka warqabnaa you know me bro ma fahanteen aada ii taqaanaa dadka ani hooyada lagu qasbayo wax la dhahay oo hooyada loo biilay mihi okay ani shalay wanaaga aan kugu sameeyay waa arki weyse brother xumaana igu bedeshay okay adoo i xumeysay ayaa hadana ku sii wanaajiyay then maanta markaa aragtay adu ma aqliga laada ilmaha adiga gacantaada ku soo dishay sidoo u dhalanaya miis weydiisay way sawacay wiilkaas wixii ugu dhahay maxaa ka jira arrinka uurka ah waxa ku dhahay waa sax wixii ugu yiri maxaa hooyada ugu sheegayso hooyadii uma sheegin aan dhahay hooyadii uma sheegin ani maxaa message igu soo diray qofka qomana message loo soo diray even hada cunug ku dhalaha ta kuma sheegeen waayo aaba mistaashid I know you bro ma tiid wax aaba la dhaho hada istaashid aabo kan Djibouti ku jooga dhasho ku silacsan ayaad biilan lahayd oo aniga ay qarisan nin walbo rag ilmuhu dhalo ku faana dad dhahay way jeceshahay dadkaas laga yaabo inuu asaga soo dirsaday waxay dhahay way jeceshahay ani hada jecelahay waa wicilha waa raadsan la waxa dhila waa ku dhale been raad ma la beento wala soo qabta laakiin ani ma wacana asaga ay soo wacay rasmi ninkeeda lagu wici jiray because waxa ani kansadeed wanaagayga qof walba arki jirtay cid ku taqaantana malaha before rasmi ninka shalay ilmaha ka soo rido ku dilo jiraanjarta ka tuuray ma ku soo wacanaya rasmi point haystay ninkan waa xawayaan inta ku dheeli karta ku dheel hadaa mar dambe aniga afaare ani aan leey ka soo hadashid inta waxood igu sameeyay on telefoonkii ugu jiro ayaan soo bandhigaya maanta waa awooday jugta jirkayga u geysatay in aan soo dhigo social media magacaaga in la waayo waan awooda oo dhibka ii geystaa Soomaali maxmed marka dhigas Soomaali maxmed noo kala garqaada marka daraad xumeynaysa war gabar hadaa isku xumaataan gabar guursatay familkooda ugu maatay waa ka soo doonatay si sharaf ah lagu siiyay wadankeeda ku guursanaagteeda raranayda nin naagtiisa uu raran kara waa ay kaxisay Hargeysa dadka aan ka saayay fanaaniintii waa iga dhax bixisay boorama ay geysay inta waxa ii wadaad inaa hilibkeyga jarjarto maan subax baa jiraanjarka iga tuuraysanay hada maxaa jir kuusi joogi laha maalinta ka dambeysana waa ay qalqali lahayd ma fahamtay laakiin alxamdulillah nin ani idilo ii gacan qaad oo ilmiyayga banaanka ku soo daaday si kan lama sii noolaadeen waana ka soo tagay hadaan ku jecla kaama soo tageen ma fahamtay waxa indhahaaga ii saaraysan waa aniga naagnimadeyda because nin ani ii gacan qaado idile oo wadankiisa igu gumeystay subax baska isoo saaraysa ay ugu lahayd guriga kiradiisa hada guriga ka tagaysid guriga kiradiis keen war ani mihi naag joodari iyo sariir iyo maacunka daba hadasho shalay markaan ku raacay alaabteydan galay waan ku raacay ana alaabka gurigeyga sharaxda Hargeysa ilaa Booram markaan soo baxayna waan kaaga soo tagay wax walba buuxo meesha adii midkaanimada telefoonka ku qaadanaysay gurigeyga buuxo alaabtey buuxdo laptop wax walba gurigaas dhigay saa u buuxo ayaan kaaga soo dhaxbaxay ma fahanteen alxamdulillah maxay maada Nairobi gurigii ka shidan alxamdulillah waa guri aduun wuxuu ii saray malahan ayaan deganahay waan shaqeystaa waxa adiga kaaga baahanahay iyo noocaaga kale ma jirto waxa ku leeyahay hadaad mar dambe aniga afaare aan leeyahay istiraahda rasmi point ka helasa soo qaado
balani axdi waxa igu sibirada aan ka haay wajigayga sida u bedeshay waa is ogtahay laguma sheegayo ma fahanteen dadka qaar markii wax lagu sameeyo social media soo dhigan sibirada dhibka ku dhacay ani waxaan u soo dhigi waxay tahay waxaan fiirnay bilkas shala wanaagina ka dhaxeeyo waxaas la rasmi haduu xumaaday ha ka daba xumaanay gabdho badan arag social media la wareejinayo oo intuu ninkooda dilay wajiga laga halay jirka wax og dhacay la wareejinay aniga jugta la ii geystay daawac la ii geystay ma soo bandhigin qalbigayga ku heystay social media ma dhigin waa haya sibiradu oo farxaan ii geystay dhibka waa haya waxaan u soo dhigi waxay tahay rasmi ninkaasi dad shal wanaag isku barta ay heedeen rasmiyay ka wanaagsanaw oo ku soo ceyn karin inta meel ku soo fariisto kuma soo ceynin afka aan shal kuuga amaanin kuuma caynayaan ku dhahay laakiin ana doqon hay malayno maadaama aan ku dhahay kuma caynaya hay ugu dul soconin brother ma fahantay